سلام كبدي حرب إن هذا عديو جودهان تيم كان عاوة كان أقوى ضعفري اسمه الضوء كها مسؤولين تودا قارهان قبلها وليو ماشى كامري بري صاحي وضع وحرب دبهان جبلان bilowgii ugu horeeyay aan filayay in badan oo idinka kamid inaad goobjoog ka ahaydeen waxaan ka shaqaynaynaa waxay ahayd nabadayn iyo dib u heshiisiin muddadaan kusoo qaadanay dib u heshiisiinta iyo nabadaynta iyo sifada aan Jubbaland ku dhisnay inta waxaan isla wada garanayna waxaan aad uga hadlaynay oo aad garanaysaan muddada hadda aan ololaha doorasho iyo maamul waxbaa la doortay iyo dhismihii la galay kulligood inta ay qaadatay iyo muddada intaa la eegeen maalin walba dib u jiitamayna ee aan ka shaqaynayna inaan helo nabad shalay bay ahayd dhismihii Jubbaland markaan dhisaynay caqabadihii aan kala kulannay xilligaa iyada ah dhismihii Jubbaland oo aan qaadanay go-aan adag oo geesinimo leh oo macnihiisu ahaa ma dhisayno waxba nooma hagaagayo waxaan wax u dhisaynaa waa reer Jubbaland waa inaan iyagoo midaysan aan helo oo garanaysaa gobolkaani xasaasiyada uu leeyahay ee dhibaatada inta ay leegtahay taasi waad garanaysaan 2013 marxaladii aynu soo marray siday ahaayeen kama ayna duwaneyn midda maanta aynu ku jirnay midii hore aan soo marray iyo wajigii ay lahayd mayna ka duwaneyn taas kamayna duwaneyn waxaan intaa u jiitamayana waxay ahayd haddii aan leeyahay aleelehe way kuu buuxaan oo cidi kaama maqan dee maalintii doorashadu dhacdayba intaan haddana dawlad ku dhawaaqo yaa waxaan odhan lahaa waxba igama dhinno hore u soco laakiin waad garan kartaan maalin walba inta tallaabeen dib u qaadayay ee lahaa maanta qof baa maqan hebel baa maqan shalay bay ahayd qof walba gurigiisaan ugu tagnay 2013 saa wax ku soo dhisnay qof kastoo idinka mid reer Jubbaland oo goobjoog ah uu garanayo maantana tii oo kale kama duwaneyn waxaan rabaa inaan idiin sheego marka hore soo dhawaada Jubbaland aan wada leenahay bay ahayd waana wada lahaanaynaa waana wada lahayn hadday tabasha jirto waxaan in badan ka shaqaynayay marka aan anigu jooga xafiiskayga inaan banaanka fadhiisto oo aan isku dayo qof isoo raadiyey oo qolka haddaad ku jirto aad arki weyday banaanka hadduu soo galay inaad aragto sidaasay tahay haddana cabashadii waxay noqotay ma aragno waan is wada arkaynaa weliba gabdhaha ballamo gaaraan u qabanayaa waan kulmaynaa cabashadooda iyo waxay ka hadlayaan iyo waxay sheeganayaanna kulligeed dib baan u fiirinaynaa haddii ilaahay mana aha kulankan waxaa inoogu xigi doona mid loo wada dhan yahay oo reer Jubbaland caawa fagaaraha waxaa iska lahaa isbedel doone qoladii kalena intaan u yeedhno innagoo Jubbaland oo aan qolo kala ahayn oo barkad isku abaynu israaci doonaa haddii ilaahay yidhaahdo markaasaan waxayna qabsanayna waxaan aada ugu rajo weynahay waxa aan dhisayno ama dawladda aan dhisaynaa inay noqoto mid siyaalo badan u hufan mid dhinacyo badan laga fiiriyo mid aan la eegayn hebel isbedel buu ahaa iyo habeen buu wax kaa sheegay iyo hebel waxaan u malaynayaa dad muslimiin aan nahay qof kasta wax waa laga sheegayaa ani qofka maanta wax iga sheegay muuna jariimo dembi muuna gelin sababtoo haddaan wax leeyo haddaan wax hagaajiyaba wax sheego waa wax dadka had iyo jeer u dhaca nebi maxamed bay kuwii dad ugu dhawaa wax ka sheegayeen ee la noolaa xilligiisi maxaad u malaynaysaa marka axmed oo xilligan jooga maanta cid waliba haddii la yidhaha maadan cadaalad samay way soo martay haddii la yidhaha waxaan lama samay kulliba waxaan wada marayno laakiin waxaan rabaa inta aan kari karayo inaan ka shaqeeyo isku wadista reer Jubbaland iyo isu keenistooda iyo wada shaqayntooda waxaan sida qof kastoo idinka mida uu ku baaqayaan rabaa inaan sheego inta idinka maqan ee isbedel doonka ahay baaq baan u diraynaa waxaan leenahay ha yimaadeen waan wada hadlaynaa qofna xuquuqdiisa looma diidayo xuquuqda qof waliba uu leeyahay buu leeyahay ma aha inaan kulligeen wada noqon karayno wasiir xildhibaan maxay ka laakiin qof dadka karaamo iyo waxaa deeqda xurmad
وقفل يوحو مدينة إلا قرتها واحتروا تاسان كوضا شقينين سادقوا باقدين بانقوا باقيا سادقوا ياريسين بانقوا ياريا إن شاء الله كلا كان كلا ما ينوغ يضمين دون وليو هذا الكي غير دي سكاسون لغان دون يضو اللي وذا تشوغر يتشوب اللان وقف واحتبان يقف لقد نقم با وحكالة طبان وسياسي با وحكالة طبان ودليانا وحكالة طبان وقبلها يهويوين كا وحكالة طبان وقف والبتواشد ويجتا وعن روا إنه هل حيرا هل ويل وحكوة دعونا إن شاء الله إنا نسوق لما أنه وأن سيدا كوة لهذا سيدا عاد كوبا قيسين دولة فضل الكا مني جبلان ريبابليك بان هي دولة مدح بنان وحانا استيت كترسل دولة جولاد دولة فضل الكا صوماليا مدحنا قرن كان وحان لنا dadkan madaxda u tii waa kuwa iyagu heshiiyey haddaan salay lahaydeen hebel baa mucaarad iyo hebel baa karan hal bii isku wada fadhido maanta wax la sii sheega male waxaan le odhan lahaa imaadda oo idinkuna liidhka qaata dadkii aan isu keenaynayna kaaleya hogaamiya mujtamaca soomaaliyeedna maanta dowladnimu u baahan yahay khilaaf nina waxba uma taran qof meel ku dhameeyey iyo qof meel u qaaday midnana ma jiro taana waxay la tahay in sidaas aan u wada qaadano soo dhowaada aad baan idinka mahad celinayaa muddadii dheeray ee aan kala xirxirnayn ee aada sabirsanaydeen iyo weliba si aada u ilaalinaysaan dhaqanka iyo anshaxa oo aada uga ilaalinayseen inayna laftu jabini aada ilaalinaysaan si sharaf leh in dadku u wada joogaan si sharaf leh in wax lagu soxo waxaan u mahad celinayaa mas-uuliyiintii aanu kismaanyaro ku kulannay nairobina ku kulannay soo dhamaysanay isbeddeldoonka madaxda u ahaa oo iyaga laftirkooda aanu si toosa oo hoose oo kore aan u wada hadalay iyagana aad baan ugu mahad celinaya isbeddel doon waad mahadsantihiin laakiin isbeddel doon hadda ma jiro waxaan u baahannahay hadda isa sixid waddo fiican oo wada qaadno dadkoon la isu diidin iyadoon wada kulanno talada la isweydaarsado soo intaa iskuma ogi taasaan hadda ka shaqaynaynaa haddii ilaahayda waa bil ramadaan aan iscafino halla isa saamaxo weliba tobankii dhexaa sii dhammaanaya waxaan u malaynayaa waqti waxaan ku jiraa cibaada haddaan intaa kaga gudbo iyadoo shirar dambe ay inoo furaan doonaan maanta maaha dibu heshiisiintii lama soo dhammayno waa bilow qof kastoo inaga maqan baan raadinaynaa qof walooba qofka aada la maqan kaa maqaneed xidhiirka la leedahay igu soo xig qolada madaxda isbeddeldoonku way joogaan baarlamaanka soo qabteen kuwii kalea jooga odayaashii baa jooga insha allahu saasaan isku heli doonaa hal erey waxaan rabaa inaan ku daro oo arrintii wasiirka caafimaadku uu ka hadlayay karoonaha ku saabsan masalada cudurkani waa cudur saa'ila oo weyn oo dadka laynaya waanan inkiraynaa xaqiiqadaan iska indhatiraynaa si waxaan ku soconnaa nafti dil ayaan ku soconnaa waxaan u baahannahay in la qaato talooyinka ay dhakhaatiirta iyo hay-adaha ku shaqada le ay soo jeedinayaan waxaan idhi masaajidada ha la xidho masaajidka way ku dhaga adeygeen qola aan culimo ahayn oo waxay leeyihiin cibaadadiyaa lanoo diidayaa boqolaal qof baa ku dhimanaysa oo hal mar uu saameyn ku yeelanaya war soomaalidu waan ugu dambayn doonaa cudurkaa dadka ku dhiman doona saadaasha laga bixinayana way adag tahay haddaan hadda kulamadan ka bixinana ani lafteedu albaabkaan soo xidhan doonaa oo waxaan odhan doonaa qofkii soo geli karaa ma jiro laa wasiir walaa xildhibaan walaa qof kale qof walaba gurigaaga ku ekow in la yidhaahdo sababtoo cudurkaan cidna ma badbaadayso cudurkani waa cudur dhib badan oo maanta kuwii awoodda sheeganaya iyo kuwii dowladaha waaweynaa iyo kuwii quwadda lahaa maanta qof walba ad arkaysaan yaa inaga ehelin oo ah maxaan haysanaa seen isu ilaalin karnaa dadkan waa inaan isweydiinay su-aashaas cudurkaasi waxaan rabaa laamaha amniga iyo kulli dib aan awaamir usoo bixin doonaa magaalada iyo dhaqanka iyo sida waxu jira annagoon kafaalo qaadi karay nolosha dadka haddana waxaan rabnaa in wixii taxadar la muujin karayo aan muujino midda labaad cudurkan ceeb ma aha waa cudur dadkao dhan ku wada dhacaya yaan lagu talagelin cudurka qofkaan haddii laga helo miyuu ceeboobay ma meel buu ku dhacay maya ma aha cudur ceeba ma aha waa fayraskaas maanta maraykan laynaya shiina soo dhameeye ra-iisul wasaaraha ingiriiska intaasoo maalmood boqol ugu xidhnaa sakaraadka la ah qof walba uu ku dhacayaa ma aha markaa ceeb ma aha
qofkii lagu sheego waa inuu dadka iska ilaaliyo oo meel looga xidho intaad tiraa diin baan saaraynaa aan isu soo ururino maya ha laga shido abarxaawa haysee maya kan ha lagu yeelo ee dabka ha loo badiyo waxaasoo dhan waa waxaan meesha ku jirin cudurkan waan ka digayaa waan ka digayaa awaamirra waan ka soo saaraynaa waayo dadkan mas-uuliyad baa naga saaran aan ka wada shaqayno oo isbedel doonka aan ku daro la dagaalanka karoonaha iyo dhaqan xumada dadka iyo dadka sidii loo kala xakamayn lahaa waxaan filayaa aada iyo aad baad u mahadsantihiin kulamada dambe wax badan baan ka hadli doonaa haddii ilaaha yidhaahdo gabdhaha mar labaad iyo mar saddexaad soo dhowaada waan ballamaynaa kulamo gaaraan yeelanaynaa insha allahu dawladda lasoo dhisi doonana idinkaa indhihiina ku arki doona sababtoo jubbaland dib u heshisiinta way taqaanaaye ma taqaano hal qoloo keliya inay sii joogto oo waagii ugu horreysayba inta qalaawulaha soo martay in badan oo ka mida maamulka mayna gelin dadkii la keenay baa galay salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu dhalinyaro go-aan adag ciidankeena gaamuray ayaa guusha dhaliyey jubbaland gubowday jubbaland gubowday